السلام عليكم وحن سلام يا جودهان تذكر ماردا أذر معن وحاجرتا وحائجا مكان لبا قبلود مقرتي أو أنا عندنا إيجا مكان لبا كون إلا بدي الماس يجي صبح سدين طبعا اللي أحسن مركب حاجرتا جبنا أو المها إيد الشيء جبنا هاتو بحان إسقور سنة يكون إسقال بقول سديت الإسدادي كون إسقال بقول سديت إسقور سنة دولة دي محمد سياد برا جرتي وحان إسقور سنة مقالة بلدوينة فيولا كمد عن إسقور سنة مقرتي وحالي هذا دور دير ماشى سانكو خبي ماشى اسباب دقنين وقوة نولين حلقي جبهتها او دقالكي جبهتها اي باللودين او جبهتها او دولتك كعسنا دولتي محمد سياد برج وقتي جبهتها باللودين يعني ماشى كسو بحني وحان سوق لنا حمر مركان سوق لنا سقاشكي ايضا لقحايو ay jidku waxa igu sii dhashay wiilay ku dhashay ma garatay wili ma isadeen labada gabdhood wili ma isadeen sheekada bilaagun kaga soo bilaab markii ay cunugiga dhashay cunugii waa naga dhintay uuray yeelatay uurkii markii yeelatay kaniiniga malaariyada cuntay cunugii waa iska soo riday waxa ilmaha iskaga soo riday ani ayda isku xanaarnay waa kala tagnay furiin ay noo kala gaartay waa kala tagnay furiinka aan fur caawdiisa u yeeshay waa la joogay xilligii dambe oo Yunus iyo meelaha yimaadeen shaqo ka helay وإتمت وأسكسون نقصنا وأسنك أحسن سيدا كسو قرصدي مكان قرصدي أورا يالتي قبر يدشي حتى نقور كلا يالتي قبر كلا يكدشي مركز قبر جنب انتي ندلين أي واحد السفر عن قلب وأساسا ربينا آذو لوكاسا ربينا آذي ولا كماشي الجوجة أن ربينا وماشي قطق واي هان إرسيدي عن كبدري مكان بوساس قدري بوساس يتكتي بوساس مركزي هو سأي وسي بحضن ير أو أيضا ولا أو إنما هو إذا إسكالبشين أو لير هذا وبراهن عمر ليبان ليرادو على soo hadlay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan dibadda ku diro ninkan rabaa inaan iska furtido uu yiri inaan dibadda ku diraan rabaa oo aniga aan ka dhigo ninkii ku qabay oo aan ku qabay adigna aan naagteedii ka dhigto oo sidaas aan kugu wadan rabaa waa yahay tiri sidii uu kula heshiiyay xafladay sameysteen oo xalwadii wixii afkuliisu gurgelinayay xafladii waxay sameysteen oo baxay wuxuu soo dhimacnay boosaas ay jirtaa markaas inay naagtiisa tuu soo dhameystay gabadha hal gabadh kaliya ka tagtay gabadha kale uuray la leedahay meeshii tagtay ilaa ninkaana jaala soo diyaariyay barnaamijka la soo diyaariyay barnaamijka la soo dhisay waxaan la soo dhisay aniga war uma hayo ma gano waa soo noqotay ayadoo xaamil calum weyn ay soo noqotay markay soo noqotay xamaray timid xamaray isla joognay xamaray ku dhashay ma garatay barnaamijkii markuu diyaarsan yahay waxay tii cunugtan iyo cunugan kale adigu kuma dhiibi karo naag kala qabtay kuma dhiibi karo walaashan dhibanay tiri waxaan rabaa tiri inaan safar kala galo meesha aan ku noqdo way hayay sidii ku baxday safarkii xaqii aaday waaba si dhooftay yarkii ninkii oo naagtidan ku wada dhahay sidii uu ku waday dibadda aaday labadii gabdhood waxay noo joogaa xamaray joogan gabar walaasheeda haysa waxay samaysay labadii gabdhood meesha jooga ayay dacwo u soo gashay walaal isku soo diyaarisay waxaa waday oo gabdhaha waday ير ولكن عبد الرحمن كي هو إبراهيم عمر ليبان عليه كان وحلي هذا عبد الرحمن عمر ليبان متك هذه اللي معوضايو حمروا كوضي واسقمنا ناكتي ذوي لكن شوبر يوضايو شوبر برنامج بدأ شوبر بدأ يوضا وبحذي المهي دبدا لقي المهي والله وضي أدسابة لقي أدسابة مركل لقي من كان ماشي كهاي وحي سميسي فيزي المهي سوها شيء نكي وحي المهي ديري ما ويد أدان دي معلم حاجة إذن هو يجري مكاسي وحي كل شيء سي إنه تقدر جيسو العكس ده يكون يشبه خلو الدور رئيسي سي أفرسنا وماشي كويس أسكا ماشي كويس وحسن ورمها إن علمه لما بحث الله فقط وعد سوى لك لي أم بأوجه مال أمر مال أمر مال كلام قلي وحن قلنا ولا كبعد وبحذي ناكتي وعلمه سيدي كوضي ninkii sidii loogu waday 4 sano haysta laga waday waxa la geeyay Norway la geeyay waxay ku guursatay ninay ku guursatay meesha nin kale guursatay oo naga dheereen ninkii lafaantiisa oo lagu hadalsiina dirit ninkii lagu hadalsiina maya way hadalkeeda wixii markaas ka dambeeyay hadalkeeda ma baxay hadalkeeda dhan waa waayayba waaga ma kan tahayba idhaday male waaba baxsad baayada iyo ilmihii kulli baxsaday biga yihiin waaga baxsadeenba sidii markay meeshii ku tagtay oo meeshii ay joogtay ninkii guursatay ma garatay ninkii guursatay ninkiyaas ay saddex cunug u dhashay ilmihii gabdhihii aniga aan dhalay waa weynaadeen ninkii ayada isku dhacay sidii ayada sheegaysa waxay ayada sheegtay inuu ninka ilmaha fuuli jiray sheegtay
ilmahayga inuu fuuli jiray oo sidii hadda ayada sheegtay oo dokumenti aan hayo hadda ii soo dirtay email aad leedahay waa kuu soo diri doonaa sidii dokumenti iigu soo dirtay waxay tiri ilmihii iyo odagii ilmihii yaa fuulayay saasay ii sheegtay waa la isqabtay maxkamadaa la isgeeyey ninkii naagtii waa kala tageen aniga war uma hayo waxaasoo dhan markii dambe waxaa isoo wacay ninkii isoo wacay wuxuu yidhi niyow naagtaas oo heble la yidhaahdo anaa guursaday oo qabay sidii hadda aniga ii sheegtoon maqlayna inaa adiga qabtay ii sheegtay naagtii waa ilmo kale ii dhashay dhibaataa naga dhex taagan hadda waa kala tagnay maxkamadaan isgeynaynaa dacwaa noo socota waxyaaba badanaa noo socda arrintaas ka waran uu yidhi ninkii yaa isoo waca oo ay iskhilaaf inay kala tageen waa 2016 isoo waca markuu isoo wacay wuxuu yidhi saasaa jirta marka waxaad yeelaysaa nin yahow arrintaasaa jirta uu yidhi waxaad yeelaysaa ilmahaaga haddaba u dacwoon kartaa dacwo waad geli kartaa haddii aad ilmahaaga rabto sida wax lagu helaayo ii sheegay magaalada ilmaha degan yihiin ii sheegay magaalada molde ilmaha intay leeyihiin ilmihii waa weynaadeen uu yidhi saasuu yidhi waxyaaba badan ii sheegay ninkii aniga waa baxay xoogaa lacagaan asigaa ka helay waa baxay waxaan aaday addis ababaan tagay meesha safaaradda norway aan tagay safaaradda norway waxay yidhahdeen ilmahan waa ilmo waaweyn oo 20 sano gaaray dacwadooda laguma qaadi karo dacwadooda laguma qaban karo waxaad yeelaysaa ilmahaas heli mayso tiri markaan meesha tagay yar oo walaalo aan oo meesha joogay anigana ii yaqaano ayadana walaalo ay yihiin ninkii ayada wacay anay maxaa ku keenay tiri ilmahaygaan raadinaa iri caay iyo aflagaaday gashay aaday iyo aflagaadaysay aaday u caaytantay markii dambe telefoonka demisay sidii aan kusoo baxay Soomaaliya kusoo noqday xamaraan ku imid xamaraan joogay xamar anigoo jooga idaacadda yiraahdo maqal radio oo Norway ka hadasha idaacaddii aan ka hadlay wareysatay idaacaddii markii i wareysatay oo wareysi leega qaaday warkii ayadana waa maqashay ilmaha waa maqleen Soomaaliya adduunyada waa laga maqlay ma garatay warkii markaan sii daayay ninay ii soo dirtay ninka ay soo diraysana waa ninkii ilmaha waday soo diraysa oo wuxuu joogaa beledweyne uu joogaa ninkii ii soo dirtay waxaad yeelaysaa ay tiri niyow ninkaasi aniga waxaan u qoray dhimasho ninka ina ilmahan dhalay waa dhintan iri waxaan wax yeeloon ii geysan karaa waxaad yeelayseen ninkaas mar dambe yuusuf hadina la yiri ninkaasi yuusuf hadin meel loo yeelo in la dilo qorshaha ahaa dilkii waa laga baxay marka ninkii barnaamijkiisa waa laga war helay inuu meesha soo baxay waa laga war helay inuu aniga soo aaday waa laga war helay marka laga war helay dilkii waa ka baxay wuxuu galay maxkamadda dawladda u tagay maxkamadda dawladda u tagay waa sanadkan gudihiisa 2018 waaye dhowr bilood ka hor waaye ma garatay ninkii dacwad maxkamadda u tagay warqadu ka soo qaaday wuxuu keenay CID du keenay ee Soomaaliya wuxuu yiri ninkan waa naaf laga adeeyay reer dhisnaayo baabiyay waana dulmiyay waxaan rabnaa marka in nalaga qabto yiri CID da aniga liiga yeeray si dhaqso ku maawlin CID aan tagay marka intaan aadina waxaan sameeyay rag kale oo aan aqaanan oo odayaal oo meesha laga yaqaan macriifo aan hor u sii watay dadkii ana isla tagnay dadkii magaalada isla tagnay ninkan maxaa lagu haystaa leeyay ninkan naagu aflagaadiya leeyay oo dibadda joogtay ninkan cidna aflagaadeen ninkan waxaan iri aniga cidna aflagaadeen ilmaa iga maqan waxaan ka hadlay idaacadaas maqalan ka hadlay ilmaana iga maqan sidaas awoodeed aan u hadlay marka hadii ilmahayga aan aad ku yeelanayna waa gooni ardambi hadda ku yeelanay sidii aan ku tagay ninkii meeshii CID da liiga yeeray moogtay CID markaan tagay barnaamijkii asaga u watay barnaamijkayga leesla meel dhigay ninkii la xiray ninkii marka la xiray waxa ii yimid odayaala ii yimid waxay yiraahdeen ninkan miskiinka ah waa ogtiina tiri inay uu asig soo dacweeyo inuu rabay inuu xiro waa ogtiina hadda aniga ka guuleystay see ku leedahay hadda siida adig markii waa ogeeday arrinteena waa ogeedeen sharcigu kala bax waa taan tiraadeen see u dheeysay daa waxaad yeelaysaa yiraahdeen ninkii ehelka waa qaraabada waa nin walaalka ilmihii iyo naagta lagu hadasiina ilmaha lagu hadasiina khidma meel buu saara dokumenti la kala qorana ninkan noo soo daayay waayahay ninkii sida ku soo daayay ninkii markaan soo daayay markii ilaahu fadhiyo ahaaye ayadii ilmihii waa isla soo hadalnay maalintii labaad ilmihii markay aan sugay inay ila hadlaan sugay ilmihii oo caaytamaya masad ii soo qoray aflagaadaynay dabdii aniga aan dhalay ay leedahay iyada wax u sheegayso waxay leedahay saas dhaha maxaa yeelay ninkan dhimashan u qoray haddii uu aad la hadashin aniga dhibaato u gaari karto
ilmihi ay aflagaaday way caayeen waxay yiraahdaan anigana wanaagan ugu bedelay waxay joogaan markii dambe masawirradooda markoo caada khadkay ku jireen markii dambe masawirradii waa baabi'isay ayada khadkay ku jirta khadkii waa baabi'isay wixii markii ninkiina waa fakaday waa baxay ninkii waa fakaday wuxuu aaday dhulkii dib ugu noqday wixii ay fashilmeen asagana waa soo ilmay dib ugu noqday magaalada Beledweyne ku noqday markuu magaalada Beledweyne ku noqday Beledweyne uu tagay kuwii odayaasha xogaa ay qaateen xogaa lacag ay qaateen ayagana duurkooda galeen ruuxaan barnaamijka isku ogeen iyo waxa waaye waa heshiisaan dhignay wax diilaysa aawe ilmihi lama hadlo maxad ka leedihiin oday oo wax la siiyay muxuu ku taraa sidii marka ay hadda iiga maqan waa markii labaad war uma hayaba waxaan war ka hay male waa ku gargaara uu leeyahay naagtaasan guursaday dhibaato badan ay marisay uuray ilaheeda iska soo riday dhibaato badan ay marisay maadaama dhibaato ay marisay an ilma ay ka maqan yihiin ilmahaaga adna qabso raadso an ilmahayga raadsana dacwadaas oo sidaas aad samayn kartaa maxkamadan galeynaa waqti hebel maxkamadan galeynaa wiiri dokumenti aan aniga hayo warqadihii nikaaxa iyo wixii aan hayo dokumenti aniga hayay aan u diray asagaan u diray maanta maxkamadda la geeyay asaga warqadihii soo wato maxkamadda la tagay wuxuu yiri naagtan nin hor u soo baabiisay hor u soo gubtay dokumentigiisii waa kana lambarkiisii waa kana la hadlo yiri dokumentigii wixii meesha geeyay maxkamaddu waxay yiraahdeen hadduu ninka Soomaaliya joogo labadiinaan hadda nala jooga labadiinaan garta idin qaadayna kan kaas oo kuma leeyahay marka sidii marka ay warqadihii meesha ku geeyay dacwadii meesha waa taala hadduu ilaahay waa taala maxkamaddu waa taala naagto gaala aha joogta oo magaceed hadda aan hayo ilmahaygi aan balla ahayba maxaa yeelay ilmahaygi aan la ahay waxa ka u baahanahay dadka Soomaalida ah ee muslimka ah Soomaalidu waa isu gargaartaa waa aad iyo aad isu gargaartaa guud ahaan Soomaalida waxaan ku codsanayaa inay arintaas igu la gargaaraan qofkaas dambiilaha ah oo cunugiga soo riday ilmahaas igala fakaday hadda waxay dhisatay laba guri ka gadatay magaalada Beledweyne ma garatay ilmaha waxaa loo xukmiyay lacag gaaraysa $700 ilmaha loo xukmiyay ninkii xumaatada uu sameeyay $700 loo xukmiyay gabdhii la furu xukmiyay waa labadeedii gabdhood waxaa loo xukmiyay lacag $700 ah hadda sidaan maqlay bajaaj gadaan maqlay guri kalena waa gadaan maqlay magaalada Beledweyne waaye meel kasta daan maray cid wax iga qabatay waa ninkii aadab lacag siinaysa heerka ay hadda joogto waa aragto lacag intay soo dhigtay nin inuu u xiro loogu soo talagalay ama in leedi loogu talagalay Soomaaliya loo soo diray magaceedu waxa la yiraahdaa Muslim Xasan Xuseen laakiin website waxaan maqlay Xuseen ka hore la soo mariyaa Xasan ka gadaal la mariyaa ma garatay Muslim Xasan Xuseen la yiraahdaa waxay degantahay Norway magaalo la yiraahdo Morde waxaan ku soo diray waa lambarkeeda hadii ay ka qabanayso iyo hadii kula hadlayso bal lambarkeeda waa ka